Soomaaliyeed oo dhan dadkeena meel joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan سيد محمد عبد الله حسن وحو أها نينكي وهري قالة لا دغالمay naftiis ugu rooha oo inuu Soomaali xornimo u socosho ayuu doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimada meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo orbidka يا كلنت أرضك كلنت أنا دونينا مركا أديكا سيستر I'm a